السلام عليكم كسو دوادا تاريخ أحمد قري أحمد إبراهيم وكما قعديرا أحمد قري وحاو كل شيء قرن يشان التبنات تولير ولا أورنجري هوبتو كنا تال دين عوقوي المجال هرر waxay ku taalaa galbeedka waddanka Soomaaliyeed ee iminka haysato Itoobiya. Axmed Gurey wuxuu ku barbaaray Harar oo uu Quraanka ku bartay 20 sano markii uu jiray wuxuu u kacay magaalada Saylac oo ahayd bariga xarunta Soomaalida. Halkaas wuxuu ku soo booqday reer abtigii oo deganaa magaalada madaxdaasi Saylac. Isla markaas Axmed wuxuu kororsaday culumta diiniga ah wuxuu kaloo ina bartay qaabka ama habka loo fuulo fardaha isla markaana loogu dagaalamo. Taariikhda miilaadiga markay ahayd 1527 ayay Soomaalidu xaruntoodii ka dhigeen Harar kadib markii uu Boortaqiiska uu gubay magaaladii Saylac. Dabadeedna Axmed wuxuu madax u noqday ciidamadii Soomaalida ee Xabashada gaashaanka u hayay wuxuuna ahaa nin geesi ah oo wadanimadana ay ku fog tahay. diinta islaamka aad u jeclaa xaqa iyo cadaaladana mar walba isgarab istaaga. ciidanka Soomaaliyeed ayaa qabsaday dhulka Xabashada badankiisii qarnigii 16aad waxaa lagu qiyaasayay 12,000 oo askari kuwaas oo inta badan loo wareegay gobollo badan oo ka mid ah waddanka Itoobiya. haddaba sababaha keenay dagaalkaas ayaa ahaa 2 sababood oo ay ugu muhiimsanaayeen inkastoo ay jireen sababo badan oo kale. Midda koowaad ayaa ahayd in dalka Xabashada ama gobolka Xabashada ay ahaayeen ama dadka Xabashadu ay ahaayeen dad haysta diinta Kiristaanka halka Soomaaliduna ay ahaayeen Muslim sidaa darteedna ay iska soo horjeedeen. mid labaad ayaa ahayd in dadka ama gumeystayaashii reer galbeedka ee qaaradda Yurub ay inta badan si aad ah iskugu diri jireen Soomaalida iyo Itoobiyaanka si ay danahooda khaaska ah ay gobolka ay ugu fishadaan. haddaba kadib markii Itoobiya laga qabsaday gobollo badan ayaa ciidamadii Soomaalida waxa ay gudaha u galeen qaybo badan oo ka mid ah waddanka Itoobiya. ugu dambeyntiina boqorkii xukumayay waddanka Itoobiya ayaa u qeyladaansaday dowladda Boortaqiiska oo xilligan ahayd dowlad aad awood u leh wuxuuna ka codsaday in loo soo gargaaro maadaama ay khataro badan kaga imaanayso dhanka Soomaalida. waddanka Boortaqiiska ayaa u soo diray ciidamo gaaraya 450 askari oo ciidan oo wata hub casri ah isla markaasna haysta tababar heer sare ah isla markaasna haysta qalab si aad ah loogu dagaalami kara. haddaba sanadkii markuu ahaa 1543 ayaa waxaa dagaal qaraar dhex maray Soomaalidii iyo ciidamadii Xabashada oo ka barbar dagaalamayaan 450 askari oo Boortaqiis ah waxaana dagaalka ku geeriyooday halyeygii Soomaaliyeed Axmed Ibraahim Axmed Gurey. haddaba Axmed dabadii waxaa madaxtinimadii la wareegay sanadkii markuu ahaa 1543 Amiir Nuur Maxamed oo ama abti uga aadanaa Axmed. Amiir Nuur wuxuu ahaa nin lagu tilmaami karo geesinimo codkarnimo isla markaasna waxa uu hoggaanka u qabtay xoogii Soomaalida. haddaba Axmed Nuur ayaa waxa uu hogaaminayay ciidanka muddo lagu qiyaasay 25 sano isla markaasna waxa uu Axmed dilay boqorkii xukumayay waddanka Itoobiya ama Xabashada ee loo aqoon jiray Jalaadiyoos.